maxaa ka taqaanaan shaqooyinka halista ku hayso tiknoolajiyada casriga adduunka? waxaa jira shaqooyin qaar oo laga cabsi qabo inay ka cirib tirmaan adduunkan iyadoo ay soo ifbaxayaan aalado casri ah oo qaban kara shaqooyinkaasi in xilli adduunka ku tilaabsaday horumar weyn. haddaba shaqooyinkaasi waxaa ka mid ah daroolnimada ayaa ka mid ah shaqooyinka meesha ka bixi karo xilli waaxyaha gaadiidka adduunka la casriyeeyey, taas oo wax ka bedeli karta dhammaan sida haatan loo howlgalo. waxaa jira malaayiin qofa oo ku tiirsan shaqada shufeernimada ama daroolnimada gaadiidka, kuwaas oo ka cabsi qaba in arrintan saameyn xoog ay ku yeelato mustaqbalkooda. sida laga soo xigtay xarunta Goldman Sachs, dad lagu qiyaasay 3 milyan oo ku nool Mareykanka ayaa halis ugu jira inay waayaan shaqooyinka daroolnimada maadaama ay soo korortay tiknoolaji casri ah ee lagu kaxeeyo ama lagu wado baabuurta ama gaadiidka adduunka. isbedelada lagu sameeyey gaadiidka adduunka ayaa sii balaaranaya. 25 sano ee soo socota waxaa yaraan doona shaqooyinka daroolnimada. haatan waxaa dunida la wareegay qalabka tiknoolajiyada, kaas oo ganacsigii suuqyadii qabsaday. xitaa dowladaha qaar waxay bilaabeen xoojinta xirfadaha la xiriira tiknoolajiyada. dowladda Jarmalka waxay bilowday inay taageerto mashruucan, islamarkaana waxa ay danaynaysaa qorshaha ku aadan baabuurta sida iskood isku kaxeeya ama isku wado. waxay dowladda Jarmalka sheegtay in marka la gaaro sanadka 2040 in baabuurta ama gaadiidka lagu qiyaasay 33 milyan ay geli doonaan wadooyinka dalkaasi, kuwaas oo iskood isku wadi doona. shaqooyinka kale ee laga cabsi qabo waxaa ka mid ah shaqada dhakhtarnimada. waa arrin wararkeeda leh maadaama bukaanada ama dadka xanuunsanaya adduunka ku tiirsan yihiin dhakhaatiirta. kadib saameyn ka dhalatay cudurka safmarka ah ee koronaha, waxaa isbedel ku yimid waaxyaha caafimaadka adduunka, waxaana la xaqiijiyey in xitaa dhakhaatiirta ay ku adkaatay inay ogaadaan cudurrada qaar, taa oo beddelkeeda lagu ogaan karo tiknoolajiyada. waxaana shaqadan halis gelinaya qalab casri ah oo caafimaadka oo tiknoolajiyada la xiriira. waxaana ka mid ah qalabka lagu magacaabo telemedicine oo horseedi karo in dhakhtarka uu xaaladaada la socon karo isagoo joogo meel ka fog ama dal kale. tani waxay sababi kartaa in laga maarmi karo dhakhaatiir fara badan maadaama la adeegsanayo qalab casri ah, kuwaas oo qabanaya shaqooyin dad badan ay qaban kareen. kadib saameynta koronaha, shaqaalaha caafimaadka waxay safka hore kaga jireen la tacaalidda bukaanada ku dhacay cudurka COVID-19. sidaa darteed qaarkood waxay halis u galeen inuu ku dhaco cudurkani. tani waxay horseedi kartaa inuu hoos u dhac ku yimaado tirada shaqaalaha caafimaadka adduunka. shaqooyinka kale ee la waayi karo waxaa ka mid ah ama adduunka ka cirib tirmi kara shaqooyinka la xiriira maktabadaha ama librariga. dadka waxay haatan isaga tageen maalmihii buwaagta lagu soo akhrin jiray, maktabadaha iyo cilmi baarista lagu soo samayn jiray. wax kasta waa isbedeleen dunidan casriga ah. haatan waxaa dunida ka howlgal maktabado casri ah. xitaa baryihii dambe waxaa buwaagta laga heli karaa internetka oo qof kasta ka fiirsan karo ama ka danacan karo gurigiisa isagoo joogo. shaqooyin kale ee la waayi karo waxaa ka mid ah ama ka cirib tirmaya adduunka khasnajiga ama lacag hayaha. maalmihii hore waxaa jiray qof lacagaha ka ururiya xarumaha ganacsiga iyo goobaha kaleba isaga oo ku soo celinaya baaqigaaga. dunida casriga ah waxay horseeday in dadka intooda badan aysan adeegsanin lacagaha cadaanka ah ama physical moneyga ee tooska ah. waxaa soo ifbaxay adeegyo casri ah oo lacagaha lagu xabisho ama lagala baxo. shaqooyin kale ee la waayi karo waxaa ka mid ah ama ka cirib tirmaya shaqooyinka bangiyada la xiriira. bangiyo badan oo adduun ku yaala waxay haatan yareynayaan shaqaalaha maadaama adeegyada lacagaha lagu sameeyo uu noqdo mid casri ah ama digital. mustaqbalka waxaa dhici karta in bangiyada qaar ay iska xiraan xarumahooda maadaama adeegyada ay ku fulin doonaan online-ka. dunidan haatan waxaa si weyn loo maalgeliyaa ganacsiga online-ka maadaama adeegyada la xiriira lacagaha la isku marsiin karo halkaasi.